GPT iyo DeepSeek horta labadoodaba shaqo fiican bay qabtaan, laakiin xagga Soomaaliga waxaa kaga fiican ChatGPT-ga kaga fiican marka la turjumanayo. ChatGPT-gu waa Maraykan, saad sheegayseen, ka kale waa Chinese, kan lacag 100 milyan, 100 bilyan ku baxday, kan 6 bilyan ku baxday. Marka ujeedadu waxaa weeye uun wixii dukumenti caalamka yaallay oo dhan baa la gelin, kadibna dukumentigaas su-aalaha dadka ay weydiinayaan buu ka dhex raadin bay ka dhigan tahay. Marka xogtiyo kooban baad helaysaa. Xogtaa koobanna iyadoo ii summarize garee waa la dhihi karaa, shaqooyin badan uu yara qaban karaa. Marka waxaan idhi, sidee bay macallimiinta, ardayda iyo waalidka dugsiga SMA Academy ee uga faa'iideysan karaan ChatGPT-ga hawl hawl maalmeedkooda? Marka sharaxaadu markan siinaya waxaa weeye ChatGPT can be valuable, dhammaan uu faa'iido u leeyahay. Ka macallimiinta ku yara bilaabay lesson planning and curriculum development, cashir in la diyaarsado, cashirkii la dhigayo wixii buu iyo muxuu ahaa faa'iido oga leeyahay saddexdan qaybood. Lesson planka inaad diyaariso, su-aale inaad diyaariso, worksheet, exercise dirto, cashir dheer inaad ii summarize garee aad dhahdo ii soo koob oo si yara kooban oo fudud oo la sharxi kara iiga dhig aad dhahdo, iyadana way noqon kartaa. Marka assessment and grading, dhinaca imtixaanada iyo dhibcasiinta, iyadana shaqo badan buu ka qabanayaa oo uu soo koobayaa. Professional development, horumarka macalinka isagana qayb buu ka qaadanaya. Marka hadday luqadii noqoto, naxwaheedii wixii. Classroom engagement, maamulka fasalka iyo in sheeko looga sheekeeyo iyo waxyaabo badan aad usoo diyaariso, iyadana qayb bay ka noqon. Dhanka ardayda, homework and assignment-iyadu way uga yara shaqaynaysaa. Imtixaan iyaga isku tijaabiyaan xataa wuu u diyaarinayaa oo naftooda uu u yara tijaabiyo. Language learning and communication, luqad ahaanna inay bartaan ay ku hadlaan, iyadana uu ka qayb qaadan karaa. Weliba af Soomaali English uu isku yara turjumi, labada dhinac aad ku bilowdo. Research and project, cilmi baaris, wax badan inay ka ogaadaan hadday rabaan, iyadana qayb bay ka qaadanaysaa. Waalidka ardaydooda inay taageeraan, iyadana qayb bay ka qaadan. Macallimiinta xataa inay la xiriiraan. Marmarka qaar dunida hadda iskuullada ka jiro, emailaa la isu diraa, fariimo message oo WhatsAppka la isu diray. Fariimahaas haddii inay habeeyaan rabaan qaab professional ah, isaga u yar habeynaya bay ka dhigan tahay. In yar bay qorayaan, marka ii habee fariinta marka la dhaho, fariintii oo qaab cilmiyeysan oo khatar u dhigan uu u soo saaraya. In siyaasadaha waxbarashada, imtixaanaadka, natiijadii ardayga keenayay uu fahmo, iyadana qayb bay ka qaadan waalidka. Horumarkooda iyaga qudhigooda inay isbedel sameeyaan si ardaydooda ay u taageeraan, iyadana qayb bay ka qaadan. Marka Soomaali baan haddana idhi, Soomaali buu kaaga dhigay. Marka qoraalkii kore Ingiriiska ahaa oo Soomaali ah unbay ka dhigan tahay, intii hadda aan yara kormaraynay. Tan haddii la qaato, PowerPoint-na waa laga dhigan karaa, isagoo Word-na waa lasoo yara bandhigi karaa, laakiin contentiga waxa meesha ku qoran baa muhiima. Haddii aan yara gudagallo, website hadda aan diyaarinayay baa jiro oo gabagaba hadda u dhow. Marka SMA baa loo yara bixiyey, waxaan filayaa soo bixi kan. Marka macallin walba inuu username ka samaystaan rabaa oon uga sameeyo. Username-kaasaan isticmaalaynaa. Marka haddii hadda ciwaankayga ku yara jiro, ciwaankayga hadda haddaan ka yara baxoon log out dhaho, idinka dhinacaad ka galaysaan, username baa idiin soo diri qof walbo. Marka username-kaas waa account macallinimo. Accountka macallinimo LMS tanaan ku dhufanaynaa. LMS waa qaybta cashirada iyo waxa cashirkii aad ChatGPT contentigii aad kusoo diyaarsatay, meeshii aad gashan lahayd wey. Contentiga waa kan oo saasaad usoo yara koobiyeysan, intaad highlight garayso, kadib koorsooyinka sida loo diyaarinayo. Marka hadda ciwaankan baa ku jiro. Ciwaankiini markuu galo, create course baad dhahaysaan, koorso samee. Marka koorsooyinkan ardayda iyagana 3 fasal baan target garaysanaynaa. Waa fasalka 6aadka oo 5aad iyo 6aad imtixaankooda ka iman semesterkan, xoogga aan saari doono. Fasalka
sideedaadka oo toddobaad iyo sideedaad imtixaankooda ka imanayo, fasalka koow iyo tobnaad oo sagaalaad ooga soo bilaabi doono casharada aan u diyaarineyn. Sagaalaad, tobnaad, koow iyo tobnaad ilaa laba iyo tobnaadkooda inay diyaar garow fiican sameeyaan. Marka iskuulkan Smack ee Qalaf ku yaala 3 fasal buu leeyahay ilaa koow iyo tobnaad, laakiin kan Goday lixaad iyo sideedaad unbuu leeyahay. Marka create course markaan dhahno koorso noo samee, wuxuu kuu furayaa dhowr step la mari. Create course, koorsada in la sameeyo, setting aduu stepka koobaad koorsada magac baad u bixini. Tusaale ahaan waxaan u bixineynaa English baan dhahaynaa, English for grade 6 baan leenahay. waa koorsada magaceed. Sawir isagana xaggan aan ka qaadanaynaa, sawir koorsada ay leedahay taas oo kaleeto. Marka koorsada faahfaahin waa loo yara samayn karaa, laakiin hadda muhim ma ahan maadaama waa iska hordhaceedii. Move to next step labaad baan u gudbaynaa. Marka stepka koowaad waan soo dhaafnay, stepka labaad oo setting ah baan u gudbaynaa. Settingigaas ardayga cutubyo dhigan doona ama quizzes. Marka cutubka koowaad isagoon dhammaystirin ka labaad inuusan u gudbin hataa rabto, halkaa baad furi bay ka dhigan tahay. Kuwan kale waan iskaga tegaynaa, taa keliya baad furaysaa. Next move to qaybta xigtaan u gudbaynaa, qaybtan xigta labaad. Haddaan rabno xagga waan dooran karnaa iyadana set curriculum. Curriculumkii markaa in aan manhajkii gelino. Labadoodan qaybta build curriculum baan ka dooranaynaa. Marka halkan weeye halka koorsada cashiradeeda iyo aan ku yara dhigayno. 10 daqiiqa noo dhiman, 10 daqiiqo baan ku dhammaynaynaa. Section waad gelin kartaa, unitkii waad bilaabi kartaa, su'aalo waad gelin kartaa, assignmentina waad diri kartaa. Marka labada inta badan la isticmaalo waa labadan dhexda awey. Kan isaga waa iska ciwaan guud. Ciwaanka guud waxaan sameynaynaa grammar baan ku horreysiinaynaa. Waa cashirkii kolba cashirkaada. Unit baan gelaynaa. Marka unitkaada qoraal wuu noqon karaa, video waad gelin kartaa, adeegyadan oo dhan waa la isticmaali karaa. Marka tan qoraalka textigan dooranaynaa. Qoraalka marka ciwaanka koowaad eed qoranayso xaggan unit namekan ku qoraynaa. Waxaan leenahay 8 parts of speech, 8 qaybood ee hadalka haddii aan leenahay oo kale tusaale ahaan. Marka 8 parts of speech sharaxaadeedii xaggan aan iyadana markaa dhiganaynaa. Haddii aan ChatGPT-ga ku noqono, 8 parts of speech in English for grade 6. Ama maadaama isku wada mid yihiin grade 6ka aan ka dhigi karnaa 8 parts of speech in English with examples baan leenahay, tusaalayaal la raacinaya markaa. Examples, tusaalayaal. In short, qaab yar koobanna iigu dhig baa dhihi markaa si uusan aad ugu dheeraynin. Sida markaan dhahno uu noo sharixi noun names a person, place, thing or idea. Marka 8 qaybood ba hadda sidan uu noogu dhigay. Si yaro kooban maadaama aan dhahnay, intaa yare kooban buu ka soo qaatay. Haddaad rabto mid mid iigu faahfaahi waad dhihi kartaa, oo kolba baahidaada iyo saad u rabto ardayda meeshay fahmi waayaan. Si aan soo koobiyeysanay xaggan markaan dhigano, waa kana way dhigantay. Bas halkaa cashir hadda uu dhigmay. Add unit baan leenahay, unitka ku dar cutubka. Marka sectionkii koowaad grammar buu ahaa, 8 parts of speech waatana. Su'aalaan ku dari karnaa marka su'aal haddaan rabno. Marka simple baan ka dhigi karnaa. Su'aalahaas qaabka loogu yara darayo waa 8 question waan dhihi karnaa. Su'aal marka la diyaarinay. Marka ciwaankeeda aan kasoo yara bilowno. 8 parts of speech. Marka maadaama ay quiz tahay, quiz su'aalo, quiz baa xaggaa ku qoraynaa. Waa ciwaankii taa. Marka sharaxaad yara kooban waad yara raacin kartaa wuxuu ku saabsan yahay.
waktiga aad ugu talagashay iyadana xaggan baad 5 daqiiqa hadday tahay increaseka marka 2 daqiiqo hal su-aal inaan diyaarinayna aan ka qaadno in natiijada uu systemka sheegayo su-aashiiba mar inay usoo baxayso adigu halkaa meel umansaxaynaa iyo daqiiqadaha 2 kadib markii uu soo samid gareeyo ardayga soo xareeyo in natiijadiisi la tuso su-aasha marmar waad u ogolaan kartaa inuu check gareeyo isagoon ka jawaabin oo su-aasha yara fiiriyo laakiin imtixaan ahaan markay tahay ma yara fiicno taas then waktiga imtixaanka uu bilaabanayo iyadana waan set garayn karnaa haddii aad ugu talagasho 5 cisho kadib inuu u furmo taariikhdii baad ku qoraysaa oo bilaabmaya taariikhda ku ekaa laakiin haddii aadan taariikh la-aan ka dhigto cashirkaa markuu soo dhameeya su-aalihii ku xigay baa u furmaya ka dhigantay su-aalaha create questions waan dhihi karnaa su-aalaha marka true false waa ka dhigi kartaa run iyo been multiple choice oo hal jawaab leh waa ka dhigi kartaa multiple choice oo jawaabo kala duwan leh 2 jawaabood uu dooran karaa ka dhigi kartaa short answer mid jawaab yaro kooban uu bixinayo aduu waa noocyadii kala duwanaa ee imtixaanka uu ka koobnaan jiray marka mid aan inta badan isticmaalayno waa midan ka doorada ah ee halka jawaab leh baa inta badan isticmaalayna marka su-aashii jawaankeeda xaggan ku qorayna marka eh, aan ChatGPT ku noqono create one multiple choice question hal su-aal uu noo diyaari waan leenahay multiple choice questionska MCQ baa usoo gaabin kartaa about 8 of speech ama about noun waan dhihi karnaa noun qayb kamida macnaha 8 qaybood u horeysa noun maadaamay ahayd with answer jawaabteedina wadata markaan marka halkii su-aal sidan oo kale noogu dhigay which of the following is noun kuwan soo socda kee su-aashaan koobiyeysanayna then xaggan markaan ku noqono su-aasha ciwaankeeda waan yara dhignay question description su-aasha faahfaahinteeda weye markan isla su-aashii waad ku yara celin kartaa kadib optionskii baan dhigaynaa 4 xaba ah 2 3 4 optionska waxaa weeye waa kuwan ABC da ahayn ee halkan ku cad run baa u horeyso ranta xaggan markaan dhigno waxaa ku xigi beautiful then cat jawaabtu inay cat tahay weye marka c bay u yara taagan tahay xaggan quickly waa d-dii marka optionada waan badsan karnaa innagay nagu xidhan tahay xaggan ced unbaad dhihi midkaad rabto waad iska reebi kartaa jawaabta saxda ah marka number ahaan baad ku caddayn 1 waa a 2 waa b 3 waa c marka jawaabtu maxay noqoni xaggan maadaamay kaad ahayd 3 baad ku qori jawaabta 3 markaad ku qorto hinti baa u samayn kartaa hinti waxaa weeye waxa ardaydu ay yara hinti waxaa weeye su-aashan inay noun tahay un macnaha oo qaybta parts of speech waad iska dayin kartaa haddaad rabto faahfaahin haddii aad ku darayso ChatGPT with explanation waan raacin karnay haddii kalena mar kale aad weydiin kartaa oo waxaad dhihi kartaa explain sharax baad dhihi kartaa marka sababtay ku imaatay marka taas sababtaasi khalad ku tahay taana sababtaasi khalad ku tahay siida sababtaasi sax ku tahay marka sharaxaad maadaamay tahay waan yara koobiyeysanayna ardayga jawaabta say ku imaatay in marmar sharaxaad uu yara helo iska yara jecel yahay sharaxaadii oo dhan xaggan aan dhiganayna sharaxaadda marka su-aasha markuu ardayga ka jawaabayo ma ma soo baxaysa laakiin waxay soo baxaysaa markuu ka jawaabo kadib hadda marka halkaas su-aal baan gelinay aad baan leenahay shirkii aan diyaarsanay maxaa weeye 8 parts of speech waan soo sharaxnay hal su-aal waan raacinay bas inta marka stepka u dambeeyo oo accessibility ah waan tegi karnaa qof walba
waan ku leh koorsada wuu arki karaa, waan furaynaa. Then finish markaan dhahno koorsadii saasay diyaar ku tahay bay ka dhigan tahay. Hadhow cashiro kale waa ku darsan kartaa. Cashiro hadda koorsadii waa tan sawir baan u sameynay. Marka la yara guda galo la bilaabayo sidan oo kale hadda u yara ekaane. Ciwaanka ciwaan kale haddii lagu galo iyadana saas oo kale loo yara geli karaa. Waad yara practice garayn kartaan. Ciwaano usernames waa idiin soo sameyn, waa idiin soo diri daqiiqad maadaama hadda ka yara harsan tahay kulankeena. Marka haddii qaabkan aan u yara gudagalno ardaydeen saddexdaa fasal la taargeed garaysano wax weyn baan ka bedeli karnaa, natiijo fiican way keeni karaan. Tiknoolajiyaduna wayna caawinaysaa, wax badan bay naga caawin. Hal qof Dr. Aaron aan ku wareejiye halkaa daqiiqo. Welcome Doctor. waa mahadsan tahay waswad. waan la salaamay baaska iyo macallimiinta iyo lead teacherka SME. Eh, waa shir muhiim oo maanta la qabtay. Macallimiintu wax badan oo ka faa'iidaysan karaan. Macallimiintana bas ma aha, annagana ase maamul ahaan iyo management, school management inaan ka qaadano. eh, waalidiinta hataa inay ka faa'iidaysadaan kuwan fikirkan teknolojiyada inay ka faa'iidaysataan inaa caawinaa u baan ka fahmay maanta uu shirkeena. Marka ChatGPT iyo DeepSeek waa wax badan oo noo caawinaya. So adduunkana ina gadaal ka marno ma la rabo ina la qabsano. So gaariga teknolojiyada ina raacno u fulno la rabo.